daawadayaal kusoo dhawaada janaalka caafimaad. maanta waxaan ka hadlaynaa maxaa keena caadada dumarka oo aan xilligeeda ku iman. marka hore haddii aad ku cusub tahay janaalkeena subscribe iyo share garay, qaybta hoose waxaad noogu reebi kartaa ra'yigaaga. caado wareerka waa xaalad aad u badanaa dumarka 30% ayaa ka sheegta. waxaana loo qaybiyaa ilaa 4 qaybood. waxaana jira waxyaabo keeni kara in caadada aysan waqtigeeda ku iman ama soo dib dhacdo ama ay soo hormarto. waxaana markaasi la yiraahdaa in dhiigga caadada uusan waqtigiisa ku iman. haddaba waxaa jira ilaa 4 qaybood oo loo kala saaro. haddaba waa goormee xilliga la dhihi karo caadada waqtigeeda kuma aysan iman. 1. caadada oo kala fogaata muddo 35 maalmood ah iyo wixii ka badan. 2. caadada oo isku soo dhawaata bishii 2 jeer ama in ka badan. 3. caadada oo muddadeeda dheeraata dhiigbaxna uu la socdo. 4. caadada oo la waayo 3 ilaa 6 bilood ama in ka badan. daawadayaal waxaa jira waxyaabo aan cudur ahayn oo keeni kara in caadada aysan waqtigeeda ku iman. waxaana ka mid ah waxyaabahaasi keeni kara diiqada, walwalka, cadiifada iyo cabsida ama naxdinta. 2. caadada markay cusub tahay waxaa qaldama dhowr bilood inta ay ka tooseyso. 3. cunto xumida iyo mataga joogtada sidoo kale waa xaalad kale. 4. jimicsiga badanaa haweenka jimicsiga badsada caadadooda waa ay qaldantaa. 5. daawooyinka qaar sida kuwa uurka looga hortago sidoo kale waxay qayb ka yihiin waxyaabaha qaldi kara caadooyinka. 6. cabsi uur ama qofka in uu markasta uu ka walwalo in uur uu qaadi waayo marka aroos cusub uu yahay waxay qayb ka tahay waxyaabaha qaladka ku keeni kara caadada. 7. sigaarka iyo cabitaanka alkoholada ama maandooriyaasha kale waxay qayb ka yihiin waxyaabaha qaldi kara jadwalka caadada. 8. naasnuujinta ayaa sidoo kale qayb ka ah waxyaabaha qaldi kara. waxaa jira haween badan oo marka ay ku jiraan naasnuujinta sheega in qalad uu ku yimid jadwalka caadada, laakiin wax walwal ah yaysan muujinin haweenka noocaas oo kale ah. kaliya ha ogaadaano in ay tahay wax dabiici ah oo mararka qaar ay isku arki karto. 9. xilliga hore ee dhalmadayska sidoo kale waxay qayb ka tahay waxyaabaha qaldi kara jadwalka caadada. 7. haddii aad xiran tahay qalabka uurka ka hortagaya sidoo kale waxaad arki kartaa in jadwalka caadada uu qalad uu ku yimaado. waxaana dumarka inta badan loo sheegayaa in aysan wax walwal ah muujin haddii jadwalkooda caadada uu qalad uu ku yimaado. 11. miisaankaaga oo si dhaqso ah u kordha ama hoos ugu dhaca sidoo kale waxa uu qalad ku keeni karaa jadwalka caadada haweenka. 12. haddii haweeneydu ay mar dhow ay dilantay ama ilmo lagu soo xaaqay waxa ay la kulmi kartaa in jadwalkeeda caadada uu qalad uu ku yimaado. waxaana dhaqaatiirtu ay ku talinayaan in aysan wax walwal ah dareemin haweenka noocaasi oo kale ah. 12 qodob daawadayaal waa waxyaabaha aan cudurka ahayn ee dumarka u keeni kara in qalad uu ku yimaado jadwalkooda xilliga caadada ay u timaado. waxaana dhaqaatiirtu ay ku talinayaan in haweenka haddii ay isku arkaan aysan ka walwalin wax cudur ahna aysan qabin. haddaba daawadayaal waxaa jira 12 qodobo kale oo cagsi ku ah waana waxyaabaha cudurka ah ee keeni kara in caado wareer ay isku arkaan haweenka. waxaana ka mid ah 1. xaaladaha uu kacsan yahay ama hoos uu u dhacsan yahay qanjirka tayroodka. marka xaaladaasi ay jirto waxaa qalad ku imaanaya jadwalka caadada ee haweenka. 2. xanuunka haweenka sida caabuqa minka, tubooyinka ama ugxansidayaasha. marka xaaladahaasi ay yimaadaan waxaa qasab ah in haweenku jadwalkooda caadada uu qalad uu ku yimaado. 3. qalad ku dhaca hormoonada qaas ahaan kuwa kontaroola caadada. 4. haddii haweenka ay qabaan xanuunka ugxansidayaasha waxaa lagula talinayaa in ay la kulmaan dhakhtarkooda gaarka ah si xaaladooda wax looga qabto. maxaa yeelay xanuunkaasi waxa uu guud ahaan uu bedelayaa jadwalka dhiigga caadada ee haweenka waxaana keeni kara dhibaatooyin fara badan. waxaa sidoo kale haweenka ay kula talinayaan dhaqaatiirta haddii ay arkaan in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ula kulmaan
keliya ma ahan in jadwalka dhiigga caadada uu qalad uu ku yimaado, guud ahaan waxaa halis ah nolosha haweeneydaasi. sida caadiga ah haddii caadada la waayo xilligeeda, waxa ugu horeeya oo lagu fakaraahi waxa uu yahay in uur uu jiro iyo in kale. haddii uusan jirin, waxaa muhiim ah in qofka lagula taliyo waxyaabaha sida dabiiciga ah u keena caado wareerka oo aan qaybta kore ee barnaamijkeenna aan ku soo xusnay. haddii qofka uu qaato daawo saameyn karta jadwalkiisa caadada, waa in lala dardaarmaa islamarkaasina loo sheegaa in qofkaasi uu isticmaalo cunto dheelitiran, walwalka iyo walbahaarkana uu yareeyo, jimicsiga siyaadada ahna uu ka fogaado. haddii caado wareerka aysan ka dhalan inta aan kor ku soo xusnay, waa in lagu fakeraa in uu jiro cudurro dhowr ah oo keeni kara jadwalka caadada in uu wareero. waxaana ka mid ah xanuunadaasi infekshanka ku dhaca haweenka. calaamadaha la socda caado wareerka waxaa ka mid ah xanuun dhabarka ah, xanuunka wareega caloosha qaybteeda hoose, qoyaan farjiga ama xubinta taranka ee dumarka ka yimaada, iyo tabardarri xooggan oo haweeneyda la soo gudboonaada. nambar 2, xanuuno ku dhaca xubnaha ku howlan habdhiska caadada sida ugxansidaha, tubooyinka iyo minka. tusaale ahaan, kiish ugxan buro, fiix iyo cilad ku timaada ilmagaleenka. waxaa kaloo jira cudurro badan oo saameeya hormoonada jirka maadaama ay yihiin kuwa kontaroola caadada, sidaasina caado wareer uu ku iman karo. cudurradaasina waxa ay yihiin kuwo aad u fara badan. haddii aadan wax xanuun ah isku ogeyn, dhalmagoys shakhsiyadeedna aadan isku ogeyn, cuntadaadana ay isku dheelatiran tahay, jimicsi siyaado ahna aadan samaynin, kadibna aad isku aragto caadada oo kaa soo daahda ama kuugu soo dhaqsata, waxba taas ha ka welwelin. waxaa laga yaabaa in isbeddel hormoonadaada iyo shucuurkaaga ama welwel ama cilado kale oo saameyn kara cadiifadaada inay jiraan. laakiin haddii aad isku aragtid astaamo xanuuno kale oo la socda caado wareerka ama caadada oo wareersan muddo 3 bil ku dhow, waa in aad baaritaan guud aad isku samaysaa adiga oo la xiriiraya dhakhtar ku takhasusay cudurrada haweenka si lagugu sameeyo baaritaan guud, wixii jirana lagugu sheego. haddaba waxaa jira dhowr ka mid ah dadka ku xiran bogagga caafimaadka, kuwaas oo isweydiinaya, ma jiraa qaab dabiici ah oo cuntooyinka ka mid ah oo looga hortegi karo ama lagu ilaalin karo caadada in aysan wareerin? waa inaad marka hore ogaataa waxyaabaha keeni kara si aad uga fogaatid. midda xigta, waxaa jira waxyaabo dabiici ah oo cunto ahaan loo isticmaalo, kuwaas oo ka qayb qaadan kara jadwalka caadada. waxaana cuntooyinkaasi ka mid ah babaayga, sisinta, sanjabiilka iyo qarfaha. nambar 1, sanjabiilka oo shaah laga dhigto wuxuu yareyn karaa xanuunka caadada, waxaana lagu daweeyaa caadayarida ama soo daahidda caadada. qaado nuskeeda oo sanjabiil shiidan, la dhig koob biyo qandac ah muddo 5 ilaa 7 daqiiqo ah. ku dar wax yar oo sokor ah, kadibna cab 1 koob cunto kasta kadib. waxayna taas kaa caawin kartaa in uu yaraado xanuunka caadada. waxaana sidoo kale lagu daweeyaa caadayarida ama soo daahidda caadada. nambar 2, qarfaha isagana wuxuu kontaroolaa caado wareerka, waxaana ku jira maado ka qayb qaadanaysa arrintaasi. qaado nuskeeda oo qarfo shiidan ah, ku darso koob caano ah oo cab maalin kasta 1 waqti, ama shaaha ku badso booska caanaha. waxayna taas kaa caawin kartaa inaad kontaroosho caadadaada. nambar 3, sisinta waxay ka mid tahay waxyaabaha qaaliga ah oo jirkaaga ku caawinaya soo saaridda iyo habeynta hormoonada la xiriira caadada. cabitaanka sisinta ah qaso oo cab 1 koob subax kasta inta aadan quraacan 2 isbuuc ee ka horeysa xilliga aad caadada filanaysid. waxa aadna isku arki doontaa isbeddel muhiim ah oo ku saabsan jadwalkaaga caadada. nambar 4, babaayga aan aadka u bislaanin, isagana waxa uu ka qayb qaadan karaa caado soo saarka, waxaana inta badan lagula dardaarmaa haweenka caadada ay ka istaagi rabto inay isticmaalaan babaayga. babaayga marka aad jarjarto kadib ayaad waxaad ku daraysaa malab saafi ah, markaas ayaadna qaado ku cunaysaa. isticmaalka talooyinkan aan kuu soo sheegay waa in la joogteeyaa si loo arko faa'iidada. ha isticmaalin xilliga aad caadada ku jirto. daawadayaal, markan waxa aan filayaa in aad fakar fiican aad ka haysataan waxa keena caado wareerka ama in caadada aysan wakhtigeeda ku imaanin.
haddii aad ku cusub tahay janaalkeena sabscribe dheh qaybta hoose ee commentiga waxa aad noogu reebi kartaa ra'yigaaga ama waxa ay kula tahay.